dalka Somaliland haddaan nahay wadani waxa weeye dhibaatooyin baa ka dhacdhacaya bariga ha ahaato taa tukarraq ha ahaato taa kale ee iminka nabadeedii laga hadlaayo ha ahaato mid iminka bilaabantay oo ceeryaan meesha la yidhaahdo ka bilaabantay oo dad ay ku kala dhinteen kuwaasoo aanu leenahay intii dhimatayna ilaahay samir iyo imaan haynaga siiyo inta noolna waxaanu leenahay ha loo dadaalo nabadda waxa weeye nabadeenni maalmahan dambe waxaad moodaa in midmadow iyo khalaadaad badani ka jiraan aanooyin qabiil oo laysu dabagelaayo dadka waxaan oran lahayn inay ka waantoobaan aanooyinka dhibaatadu sii kordhaysaa uun dhimashaduna way nagu badanaysaa dagaal wiil baa ku dhintaa ee wiil kuma dhasho dagaalka ha la joojiyo kalgacalka iyo walaaltinimada Somaliland ha laga shaqeeyo si aynu u noqonno ummad jirta ayaanu qabnaa annagu waxa weeye meesha dhibaatooyin badan baa ka jiray niman guurtiya baa loo diray guurtidaa iminka wadana waxaan leeyahay waanu idinka mahadnaqaynaa sida aa u wadaan hawsha aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa si aad u qurux badan baa u wadaan si dadnimo ku jirta u wadaan si ummadnimo ku jirta u wadaan waxa naga furateen hawl dhan baa naga furateen oo dadkeegu idinka naga wada mas'uula maadaama aan nabad u baxdeen wax loo baxana nabad baa ugu wanaagsan inaa u dhabar adeegtaan oo u sabirtaan oo waxyaalaha yaryar ee dhacaya aad ugu dul qaadataan oo gidaarada u jiiftaan oo reerihiinni uga tagteen waa wax ilaahay loogu mahadnaqo annaguna aanu aad iyo aad idinku mahadinayno waana waxaanu idinku qiimaynayno waxaan sheegaya odayaasha u fadhiya arrimaha nabadda halkaa iminka bilaabantay cusubna waxaan filayaa in la afqabto oo la qabto arrintaas oo la joojiyo intay 1 iyo 2 iyo 3 marayso in la joojiyo oo ciidanka qaranka ku hawlgalo oo shacabka ku hawlgalo oo dhammaan inagoo midaysanayno meesha ka wada hawlgalno taasi waa taa waxa weeye dawladda Muuse madaxweyne Muuse waxa weeye waxaad moodaa inuu waqti adag ku soo beegmay aad iyo aad u adag isagoo qof walba nasiibkiisa isaga wato gacmihiisa ku sita waqtigana uu wada waxa weeye inuu kaga baxo talo inuu talo badsado hadduu madaxtooyada isku koobo oo la yiraahdo ciidankii keeg bay ku quraacanayaan taasi waa tii afweyn ku dhacay oo cid u soo warantay iyo cid kale aanu helin waxa weeye dadka dadweynaha dhinac walba ha waraysto hadduu jeclaysto uunka wanaagga sheegaya ee la keeg baa lagu quraacday waa la fiican yahay dhibaato ma jirto waxaa dhuraya uu dhageysto karunta uu sheegay le war halkaas waxba ka soo socday halkaa waxa hal la qabto uu dhageysan waayo waa mushkil arinta imika ceeriyaan ka dhacday ee shalay to bilaabantay arintaasi waxay salka ku haysay aanada hore haddii ay xukuumaddu ka qayb gal lahayd ama guurti haw dirto ama nabadda haw dirto macaaheeday wasiirada nabadda haw dirto arrimaha gudaha haw dirto haddii laga hawlgeli lahaa de markaasay qabasho lahayd markaa ayay qabasho lahayd arrintaas waxaan oran lahaa wasiirka amniga oo kale to waxaad moodaa in loo haysto inuu markuu khudbadeeyo inuu cirro u jawaabo wasiir u dhaxeeyaa tahay ummadda wasiir waxa tahay mucaarad iyo muxaafid baa u dhaxeeya ee wasiir reeraha noqonin ayaan leeyahay waxaa jirta dad kale oo iyaguna sifa qabiil ugu jawaaba waxa weeye wasiirkaas bal madaxweynihiina wuxuu yidhi wax allaale wuxuu cirro ku khudbadeeyey waan qaatay isaguna uu dhaliilayaa oo shaqaalihiisii ah waxaan u joogay Somaliland iyadoo ina jaambir uu nin koonfurtaasa maagay oo wasiiraha ina cigaal baa yidhi maxaa ku geeyey duca qabo subaxii u qoray waayo wuxuu ugu qoray shaqadu u dirtay maaha inuu Muuse shaqadiisa ha garto ayaan oran lahaa dadkana shaqadiisu waxa weeye halkaa imika odayaashu fadhiyaan
wasiirka amnigu sheeganaya inuu fadhiyo ahayd halkaa odayaashu fadhiyaan uu amnigii ka shaqeeyo inuu nin afkiisa eego uu u jawaabo meesha looma dhigan wixii su-aal ay weydiinaysaanna diyaar baan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud iyo professor cali khaliif kale dhawaan waxay ka qayb galeen shirki ka dhacay Brussels idinku xisbi ahaan arintaas ay waragta arrintan iyo horaan uga hadlay arrintaas waxa weeye arrin foolxun arrin aan weliba intaan idhi madaxweynuhu wuxuu odhan doonaa maan dirsan halkan baanay ka duuleen tii garowo kalun bay la mid ahayd qoladii halkan intay ka baxday garowo tagtay special flight ka wadatay ayuun bay la mid ahayd taa Brussels ka dhacday waayo sababta cali khaliif iyo gudoomiyaha ucud midna title dawladeed oo ay leeyihiin ma jirto de wasiir maaha la taliyayaal maaha wax kale maaha waxa weeye niman shicib oo kala ah marka madaxweynaha ayaa arrintaa dirsaday sababtu u dirsadayna isaga sheegi doona waxaana laga hadlin doona haddii kale sharciyada in lagu qaado waayo Faysal baa waxaynu in badan ka maqli jirnay qofkii soo hadal qaada maxaa ahayd xamar hal la jaro carabka qof inantii yaraydee halkan timid ee ina hebel qorane waa kii lahaa xabad ha lagu dhufto dee maanta isagay xabaddii haysataa bal sida looga duwaynu eegaynaa wakhtigeedaynu sugaynaa kuma degdegayno taa madaxweynuhu waxa hore u sheegay inaan waxba ka ogeyn safarka gudoomiye Faysal madaxweynuhu haddaan waxba ka ogeyn hays casilo waayo sababta security baa jirade national security baa jira dalku wuxuu leeyahay waan dee lagu soo warrama madaxweyne hadda tahay waanad heshaa cid ku soo warto source fara badan waanad warar badan heshaa laakiin madaxweyne yiri warar ma helo nimankaasna waxaan ka weerarey markuu istaagay dee anigii isagu markaa isma dhaano aniga sawirkuun arkay ee markaliya ku naxay iyo isagu isma dhaano waxaan qabaa inuu isagu diray inuu isagu ka hadlo sida ay hay'ad uga hadlo ayaan qabaa